markan aan fiirino xaaladda waddankaasi Itoobiya oo afgambi fashilmay oo dhicisoobay uu ka dhacay gobolka Amxaarada ee waddankaasi waxaa jira mas'uuliyiin oo ugu horeeyo sargaalkii militariga ciidamada waddankaasi Itoobiya in la toogtay madaxweynaha dowlad deegaanka gobolka Amxaaradana isna waa la toogtay saraakiil kale ayaa ku jirta dadka la dilay madaxii sirdoonka waddankaasi Itoobiyana xabsiga ayaa loo saxaabay Abiy Ahmedna waa u hadlay mas'uuliyiinta dalkaasi Itoobiya ayaa sheegaya in gobolka Amxaarada ee dalkaasi uu gelinkii dambe shalay uu ka dhacay inqilaab fashilmay oo la doonayay gebi ahaanba in lagula wareego xukunka maamulka gobolkaasi ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dhankiisa waxa uu shaaciyay in la toogtay taliyaha ciidamada xooga dalka ee waddankaasi kadib rabshado ka dhacay gobolka Amxaarada ee waqooyiga waddanka Itoobiya dilkaasi Itoobiya waxa in dhawaalahaba waa dalkaasi Itoobiya in dhawaalahaba waxa ka dhacay rabshado u dhaxeeya qoomiyadaha dega waddankaasi afhayeen u hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha waddankaasi Itoobiya waxa uu shaaca ka qaaday inuu fashilmay inqilaabka waxaana uu yiri waxa uu isku dayay inqilaab ka dhacay magaalada Bahir Dar balse waa uu fashilmay ayuu yiri afhayeen u hadlay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu sidoo kale uu xusay in ay la socdaan dadaalo lagu soo qabanayo shakhsiyaadkii ama maskaxdii ka dambeysay inqilaabkaasi inay isku dayaan kuwaas oo sheegay inay doonayaan inay afgambiyaan maamulka uu hogaamiyo madaxweynaha la yiraahdo Embachewa Meknon oo ah madaxa dowlad deegaanka Amxaarada ee dalkaasi Itoobiya la haatan macda sababta ka dambeysay isku daygan inqilaabkaasi ama afgambigaasi waxaana jirta saraakiil la yahay ama la laayay sida uu shaaciyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed mana jirto cid sheegatay mas'uuliyadda arintaasi dadka deegaanka yaa sheegaya in ay maqleen rasaas xoogan oo ka dhacaysa agagaarka xarunta taliska booliiska ee magaalada Bahir Dar ee caasimadda dowlad deegaanka Amxaarada qaar ka mid ah dadka deegaankana waxa ay wakaalada wararka Reuters qaybta Afrika u xaqiijiyeen in xabaddu ay socotay muddo saacad ku dhawaada waxaana arrimaha dibadda waaxda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka ay shaacisay inay si dhow ula socoto wararka sheegaya in rasaas laga maqlayo gudaha magaalada Addis Ababa ee xarun u ah waddanka Itoobiya warbaahinta sidoo kale waxa ay soo qorayaan in uu fashilmay qorshe la doonayay in lagu kharijiyo gudoomiyaha gobolkaasi Amxaarada oo daacad u ah ra'iisul wasaare Abiy Ahmed sida wararku ay sheegayaan ciidamada militariga Itoobiya ayaa lagu soo waramayaa in la geeyay magaaladaasi si ay xaaladda ay u qaboojiyaan awoodna ay ugu sheegtaan warbixin qoraal ah uu soo saaray xisbiga talada haya ee gobolka Amxaarada ayaa isku daygii fashilmay ku eedeeyay taliye hore oo ka tirsanaan jiray ciidamada xooga dalka oo isku dayay oo yiri in uu xukunka dalka kala wareego Dr. Abiy Ahmed dhacdadan ayaa muujinaysa xasilooni darro ka jirta qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi Itoobiya oo dhowr jeer inta uu xilka uu ku fadhiyo Abiy Ahmed ay dagaalo qoomiyadaha ay ka dhaceen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed sanadkii la soo dhaafay waxa uu la wareegay xukunka kadib markii muddo 3 sano ah oo mudaharaadyo ay ka dhacayeen qaybo ka mid ah waddanka Itoobiya kuwaas oo sababay in xilka uu iska casilo ra'iisul wasaarihii isaga ka horeeyay Abiy ayaa xabsiyada dalkaasi ka sii daayay dadkii u xirnaa arrimaha siyaasadda waxaana uu xurriyadda ka qaaday xisbiyada siyaasadeed ee horey mamnuuca ka ahaa waddankaasi Itoobiya waxaana sidoo kale maamulkiisu uu maxkamad soo taagay shakhsiyaad lagu tuhunsanaa inay geysteen gabood fallo ka dhan ah xuquuqda aadanaha balse rabshado u dhaxeeya qoomiyado kala gadisan ee dalkaasi dega ayaa ka bilowday qaybo badan oo dalkaasi ku yaala haba ugu badnaatay gobolka Amxaarada sida ay sheegayaan wariyaal ka tirsan wakaalada wararka ee Reuters qaramada midoobay ayaa sheegaysa in rabshadahaasi ay ku barakaceen dad ku dhow waa dad ka badan 2.4 milyan oo qof dalka Itoobiya oo dadkiisu lagu qiyaasayo 100 milyan in ay gaarayaan ayaa sanadka dambe waxa lagu wadaa in ay ka dhacaan doorashooyinka baarlamaanka ee waddankaasi waxaana soo baxaya baaq ka imaanaya kooxaha mucaaradka oo dalbanaya in doorashadaasi dalka ay ka dhacdo xilli loogu talagalay inkastoo qaybo badan oo dalkaasi ka mid ah ay ka jiraan barakac iyo rabshado waxaana xusid mudan in xaalka waddanka Itoobiya allow sahal u yahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed
ayaa waxa uu goorsii horeysay shaaciyay in la toogtay taliyihii militariga wadankaasi kadib telefishinka qaranka mar uu kasoo muuqday isagoo xiran ama qaba dareeska ciidamada militariga waxaana uu sheegay sidoo kale dhowr saraakiil oo kale in lagu dilay weerar ka dhacay caasimada gobolka maxaarida ee Bahirdaar goorsii horeysay xukuumaddu waxay shaacisay in afgambigu uu fashilmay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykankana shaaca ayay ka qaaday in ay shaqaaleeyda uga sii digayso Addis Ababa ku sugan waxa Itoobiya ka dhacay waxa uu sheegay in ciidamada ay soo weerareen qolyo uu ku tilmaamay calooshood u shaqaystayaal aan ka shaqeynaynin danaha guud ee wadanka Itoobiya waxa uu sidoo kale shaaca uu ka qaaday in qaar kamid ah saraakiisha ama xarada la laayay xilli ay shir ku jireen waxaana uu carabka ku dhuftay in saaxiibadood ay laayeen oo la doonayo in Itoobiya xal degdeg ah loo keeno Abiy Ahmed afayeen u hadlay waxa uu goorsii horeysay sida aan idin sheegnaba shaaciyay in afgambiga uu fashilmay war qoraal oo ka soo baxay xisbiga xukuumadda ee gobolka Maxaaridana waa lagu dhaleeciyay arintan waxaana ku sheegay military hore sarkaal ka tirsanaa in uu afgambigan ka dambeeyay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa waxa ugu horreyn lagu cambaareeyay afgambigii dhicisoobay ee ka dhacay gobolka waqooyiga dhaca ee Maxaarida dalka Itoobiya Abiy waxa uu sheegay in lagu xadgudbay dastuurka dalka Itoobiya isla markaana meel ka dhac ay ku tahay shacab weynaha muddada soo halgamayay ee Maxaarida Itoobiya sidoo kale waxa uu hadalkiisa raaciyay in Abiy Ahmed murnaba aan la aqbali karin waxa uu digniin u diray dadka horboodaya afgambigii dhicisoobay balse khasaaraha dhaliyay afgambigaasi ayaa sida la sheegay waxa uu jeedkiisu ahaa in guud ahaan dalka Itoobiya uu ka dhaco waxaana laga cabsi qabay inuu ka bilowdo magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaana ugu baaqay ciidamada federaalka Itoobiya in dalkoodu ay difaacdaan si dhowna ay ula socdaan xaaladaha dhaqdhaqaaqa ee guud ahaan wadanka Itoobiya iyadoo uu sheegay in xaaladda haddii ay sidan ku sii socoto ay u badan tahay in Itoobiya marshaalo ama xaalad degdeg ah la geliyo afgambigii dhicisoobay ee ka dhacay deegaanada Maxaarida ee dalkaasi Itoobiya waxa lagu dilay taliyihii guud ee ciidamada General Sereya Makenona waxaana la jaray khadka isgaarsiinta guud ahaan dalka Itoobiya ma jirto wax internet oo shaqeynaya iyadoo dawladda dalkaasi ay kaga gol leedahay in macluumaad ku saabsan inqilaabka gudaha wadanka Itoobiya ay ka baxaan oo dalka Itoobiya khaarijkiisa ama banaankiisa ay gaaraan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed tan iyo markii uu la wareegay xukunka wadanka Itoobiya waxa uu waday islaax gobolka oo dhan hay'adda dalkiisa ayaa noqday mid saaxiib la ah dagaal qowmiyadeed oo dhowr jeer ku soo laalaabtay gudaha wadankaasi Itoobiya waxaana uu sheegay inay tahay laga maarmaan in xal loo helo mashaakilka ka taagan gudaha wadanka Itoobiya kolba si uu yiri mar hadii loo helay mashaakilka Itoobiya ee wadamada dariska waxaana Abiy Ahmed wacd uu ku maray in sharciga uu la tiigsan doono cid kasta uu ku lug lahaata afgambigan fashilmay ee ka dhacay wadanka Itoobiya intaas ayaan ku soo koobaynaa xaaladihii guud ee wadanka Itoobiya hadba wixii ku soo kordha waana la socon doontaan saaxiibayaal waana naga intaa